السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يا المسلمين تاهو waxaynu ogsoonnahay inay nagu soo food leedahay ama ay nagu soo dhow yihiin 10 kamid ah bisha Dilxija 10 cisho oo kamid ah bisha 12aad ee hijriga waana bisha xajka la tagayo 10 ayaamood oo fadli gaar ah إلهي سبحانه وتعالى أكتيس كله سو نبينا عليه الصلاة والسلام ونوت المامي هذا بداود يا لوحن إن شاء الله إذا الله وذاك دونا بالفضل جاء إليهن مع المهنين إياه وحيابها اللو بهاي هينين وقبلنا طبعا كان عشوا وجوهرين فضل جاء إليهن وحينا وقفلن آية إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كسكوت المعمول ليه والفجر وليال عشر إلهي سبحانه وتعالى وحلي وعن كل عرتي واجا iyo 10ka bisha Dilxija ugu horeeya sida ay ku tilmaameen ama ay waxa way tilmaameen Ibn Kathir iyo waliba qaar kamid ah mufassiriinta ee Quraanka Kariimka ugu horeeya Abdullah ibn Abbas Zubayr ibn Awam iyo Mujahid iyo dhamaan iyo qeyrkoodba dhamaantood waxay tilmaameen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga jeedo walayaalin 10 inay tahay 10ka ugu horeeya bisha Dilxija waxa kale oo inoo cadeynaya xadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu lahaa Abdullah ibn Abbas warinaya uu lahaa maalmahan amal la qabto waxa ugu fadli badan maalmaha waxa way 10ka ugu horeeya bisha Dilxija ay saxaabigu sii weydiiyay ama saxaabadu ay weydiiyeen ay ku yiraahdeen nabiga kaleey salaatu wasalaam hatta jihadka miyay ka fadli badan yihiin maalmahan nabiga kaleey salaatu wasalaam uu lahaa ila jihadka way ka fadli badan yihiin ila nin intuu waxa way maalkiisa iyo naftiisa iyo wixii baa la baxay mooyaane oo isagoo aan waxba kala soo noqonin oo maalkiisina waxa weey ku bixiyay jihadkii naftiisina ku waayo de ku dhintay dagaalka ninkaas unba ayuu ka fadli badan laakiin jihadka xataa way ka fadli badan waxa kale kamid ah xadiiskii Abdullah ibn Umar ibn Khattab uu wariyay oo lahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam maalmaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ugu weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu jecel yahay amal qabto waxa way waxa kamid ah maalmaha 10ka ugu horeeya bisha Dilxija walaha nabiga kaleey salaatu wasalaam badiya waxa way alxamdulillah subhanallah wallahu akbar waxa way kalimaadka badiya nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiska kulaha hadaba maalmahan maxaa loo baahayay oo sunna ah inaynu waxa way qabanno ugu horeyn waxa aad loo sunneeyo oo aad loo jecel yahay inuu qofku ku dadaalo salaadaha iyadoo ma sheegina salaadaha waajibka way salaadaha waajibka markasta waa iyagu waa qof faral bi ku yihiin inuu markasta ilaaliyo laakiin waa salaadaha waxa weeyaan salaadaha laftoodan inaad aad waayo salaada aad waxa weeyaan tukato ee aad ilaaliso maalmahan 10ka way ka fadli badan sida nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiska inoogu sheegay inaynu badino sunnayaasha waxa way ku dadaalna salaatu leelka salaada subax sunnaha ka horeeya 12ka ragcadood ee waxa way salaadaha rawaatibta ku jira inaynu ku dadaalno nabiga kaleey salaatu wasalaam wakiis xabiga kulaha waxaad ku dadaashaa alayka bi kathrati sujuud salaadaha fara badan ku dadaal waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigaaga uu waxa way ku dhaafo darajana Ilaahay kor kuugu qaado marka fadliga gaar kaliya waxa kale kamid ah maalmaha waxyaabaha la qabanayo soomka ayaa kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam waa uu soomi jiray 9ka Dilxija iyo maalinta Ashura iyo 3da cisho bil kasta 3 kamid 3 cisho kamid ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam aad buu ugu dadaali jiray soomo marka bisha Dilxijana uu soomi jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam maalmahan 9ka Dilxija kamid 9ka cisho ugu horeeya kowda bisha ilaa 9keeda 10keedana waa maalin ciida marka 9ka cisho inaynu aad ugu dadaalno waxa kale kamid ah waxyaabaha la sameeyo takbiirta oo ay kamid tahay Allahu akbar qofka oranayo iyo tahliisha iyo tahmiidka tahliishu waa subhanallah tahmiidku waa alxamdulillah inuu qofku yiraahdo marka kuwaasna inaynu ku dadaalno subhanallah walhamdulillah kalimaadkaas nabiga kaleey salaatu wasalaam noo tilmaamay xataa Ilaahay agtiisa in laga jecel yahay oo waxa way miisaankana ay ku culus yihiin maalinta qiyaamada qofka ay wax badan u tarayaan nabiga kaleey salaatu wasalaam noo tilmaamay subhanallah alazim subhanallah wa bihamdi labada kalmood wax runtii la dheersan kara ma waa kelmad arabkana ku fudud waxa way miisaankana ku culus marka kelmadahaas inaynu ku dadaalno aad baad u mahadsantiin daawadayaal insha Allah ta'ala waxaan idin rajaynayaa
waxa kale oo kamid ah cafwan la wadaagi doona in soomka maalinta Carafa waa maalinta sagaalaad nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in lagu dhaafo dambiga qofkii sanadkii hore iyo sanadka soo socda dambigiisa laga dhaafo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis ku tilmaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa weeye waynu faraynayno soono waayo qofka ma aan xajka tagaynin ee halka isagu jooga wadankiisa jooga laakiin maalintaas sooma wuxuu ka dhigay sidii qof waxa weeye xaji oo kale marka inaynu taana insha Allah taala ku dadaalno aad baad ma santihiin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh